taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyay xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen waxyaabaha maanka dooriya iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayeen. Taliska booliska ayaa goob fagaaro ah ku soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya waxaana goobta ay ku soo bandhigayeen ku sugnaa gudoomiyaha caasimadda Macalin Nuur Cilmi Cabdulle. Wareen waxa faahfaahin ka bixiyay howlgalladaasi taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb Cabdullaahi Macalin fiican oo wax ku oo la soo qabtay muddadanba ciidamada amnigu waxay wadeen baaritaan ku saabsan caasimadda oo madax noogu yahay gudoomiyaha degmada waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaala waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guriyaha ka sameeyeen waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga 3 qof oo kamid ah u xiran waxay hortagi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa hadii alla idmo ciidamada amnigu runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan ugu mahad celinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan hal qodob ku soo koobo waan digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqaddaraadka inay soo galiyaan caasimadda inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga inta waliid ku ah waxaan rabaa inaan uga digo aysan mar dambe aysan waqtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin inaysan isku soo lugooynin ayagana uma fiicna dadka deegaanka iyo islaamnimadan uma fiicna waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankan u baahnayn muqaddaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan kala rabaa inaan goobtan uga faa'iideysto waqtigan uga faa'iideysto ciidamada amnigu howlgal sidii hore u wadeenba waxay la bajibaari doonaan shaqadii waxa la sameey doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar galiyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ciidamada fadhiyada wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo 24 saac gudahood qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana oo soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu socdo. ugu dambeyn gudoomiyaha caasimadda Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa goobtaasi ka hadlay waxyaalahan qashinka ah qurunka ah nijaasta ah sida kitaabka quraanka lagu cadeeyay nabiguna noo sheegay kaleey salaatu wasalaam ilaahay markuu kaga hadlay aayadaha quraanka khamrada iyo waxa la midka rijisi baa lagu tilmaamay waxa halkan fagaaraha u keenay in aan cadeyno waxa ay tahay islaamku waa yaqaanaa sababka keenay halkan cidii keentay iyo waxa ay ku sugan yihiin waxaan rabnaa horta marka hore waxaan waa waxun shariicada islaamka ku xun khamra iyo wixii la mid ah waxaan rabnaa hortiina inaan ku gubno maanta insha Allah taliyuhu sida uu cadeeyay waxa u xiran dadkii keenay deegaanka soo galiyay ama ganacsi ha ku keeno ama nooc kale ha ku keeno insha Allah Galmudug meel kasta waxa ka howlgala ciidamadii amniga waxaan rajaynaynaa ninkii deegaanka kore iyo degmooyin kale ka soo dhiibana xabsiga inuu la soo gali doono. Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud Cabdi Fataax Fiyaad wararka telefishinka Sahan magaalada Dhuusamareeb.